halkani waa Hirshabelle TV. marka anu hadda mas'uulkii guud Xasan iyo injineer Ali Xaaji Isgoowe waa horta waa lamadeega gacnood kan hadii uga tagayna ko kala qabtay horta mago nin walbo ma maaragtay bugta ku jirtay in lamadeega gacmood iyo horta saafi aw noqdo iyo dhamaan ka soo qayb galayaasho sharaf weyn ay noo tahay waxaana leeyahay waa mid mudan ku dayasho aad iyo aad u wanaagsan wasaaradii oo xilkii wasiirkii cusub ay ku wareejinayso waxaan ku amaanayaa wasiirkii hore waxqabadkii iyo development wixii horumarintii uu ka soo sameeyay wasaaradda beeraha degma iyo gobol iskaashata ka jirto oo wasaaradda ay si ka warqabin ma jirto wixii noo dhinay waxaa dhamaystiri doona madaxdeena sare waxaa kaloo noogu muhiimsanaa waxay ahayd mashaariicda oo loogu talagalay dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa jiray dad matalo oo wasaaradda Hirshabelle ay magacaabo ma jirin qof korna looga keenay ma jirin qof nagula soo qasbay annaga ayaa mashruuc kasta oo wasaaradda ka socdo wakiil u samaysanay ayagaa noo fulinay dadkii annaga aan keenno Hirshabelle ah waxyaabaha kale oo aan ka qoys karo waxa kamid ah qaralaasi inaan u mahadceliyaa wasiirkayga iyo anigaba waxaan isula shaqeynaynaa si daacadnimo ah si xilkasnimo ah si ay kalsooni ku jirto oo aan laalaab lahayn Hirshabelle horumarkeeda oo horumarkeeda waxaan rajaynaynaa inuu du'al yiraahdo hawshii aan soo qabanay oo isku jirka ahayd iyo waxa hadda yaani mashaariicdii 2017 wixii la soo mashaariicdii la soo qabtay implementation kooda ama hirgelintooda 2019 waayo du'al yiraahdo waxa kamid ah mashruuc la yiraahdo outreach oo ah mashruuc lagu horumarinayo dalagyada Soomaaliya waxaan gudbinay Hirshabelle haddaan nahay in laga horumariyo 3 dalag oo noogu muhiimsan macna 6 dalag ayaa noo qoran 6 dalag laakiin 3 ayaa haddana waxaa la siiyay priority si horumarka dhaqso aan u gaarno waxaa kamid ah galleyda sisinta iyo mataqaana bariiska waxaa loo doortay galley iyo sisin iyo bariis galleyda waa ogtiin waa food waa wixii lagu noolaan lahay sisinta waa kaash crop waa ganacsi oo lagu horumariyo maanta Soomaaliya hadii istimid lagu sameeyay maaliyadda Soomaaliya soo gasha waxa ugu badan dalagyada la dhoofiyo oo sisinta ay kamid tahay wasiirku waa xusay ma sha Allah shaqal qabab oo la taabo karo inuu qabti wax la taabo karo waxa waaye ummadda dhanaba sheegayso maana asagana waa tii uu sheegay wuxuu u wareejinay oo 500 ruux oo jawar ay 500 maartay oo balcad waxaas ahay dalabkaas ko aan sameeyo waay oo ayagana maartay xilgoodii yimid alaabta xilgiisa timid asana uu qeybi laakiin dalabka aniga sameeyo aniga la Hirshabelle hadda maanta maray walax ka qaydanta waxaan joognaa hadda xafiisan joognaa uu kuleel iskiiray oo wax badan ka naqayeen xafiis oo maartay wasaaradda ay leedahay oo jeeda xafiis ay wasaaradda leedahay hadda aan taaganahay laakiin xilligeygii waxaan taagneen shaarican joognay saxda ahaa ay sunaysay ama ay jideysay wasaaradii beeraha gaar ahaan waxaan ugu mahadcelinayaa wasiirkii hore oo haddana la joogo wasiir Xasan Mudey maanta wareejinaya
xilkii lagu aaminay